halkani waa banka saraar waxaad moodaa lama degaan waanay ku adag tahay dadka yaqaana deegaankan xilliga barwaaqada inay rumaystaan muuqaaladan wakhtiga sidan uu noqday abaarta darteed indhihii ku dhaygagi jiray cagaarka doogga iyo quruxda idaha ee bankan haatan waxaa beddelay hirar ka dhashay kulaylka qorraxda iyo kulaylkii dhulka oo isgaadhay waxaanay sameeyeen muuqaalka loo yaqaano dhallaan habaabis oo ay adag tahay in aad indhaha ku hayso marka aad eegtana ilmada aanad haysan karin taasi oo ay sabab u tahay kulaylka daran ee ka dhacaya halkan waxa maraysa haweeney waxaanay wadaadaan iyadoo oo adeegsanaysa gaadiidka dameeraha waxay u soo dhaamisay mastaafo loo kala soconayo ilaa iyo 2 saacadood haddaanay ka badnaynba dhinaca kale intaan la soo gaadhin banka saraar duleedka degmada waridaad waxa isna maraya aabba waayeela waxa uu wadaadaan isagoo adeegsanaya gaadiidka awrta waxaanay calaamad u tahay biyala'aanta iyo abaarta ka jirta banka iyo buuraha gobolka saraar halkan waa degmada waridaad oo kala badha juquraafi ahaan galbeedka iyo bariga jamhuuriyadda Somaliland abaartaasina waxaa saameyn weyn ay ku yeelatay xoolo raacatada meelaha ugu daranna waxaa ka mid ah gobollada Sool Sanaag Togdheer Saaxil iyo Buuhoodle iyo qaybo ka mid ah degmada Gaashaamo ee dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya balse meelaha ugu daran ee abaartu sida xoogan ay uga jirto ayaa waxa ay ka mid yihiin degmooyin ka tirsan gobolka Sanaag iyo gobollada Sool iyo Saraar halkaas oo xooluhu ay si aad u itaal daran yihiin isla markaasina aanay awoodi karin lugahooda inay ku gaaraan muuqaaladani waa goobihii ugu quruxda badnaa ee darantu ay ka baxaysay waa bannaano iyo dooxooyin ay xilliga jilaalka xooluhu ku baxsan jireen laakiin taa beddelkeeda iyo amarka ilaahay waxa aad moodaa dhulka in la gubay mana is odhanaysid weligii ayaa dhulkan ay wax ka soo baxeen dadka deegaanku dhamanka iyo gacanta ayay isku hayaan waxaanay ku qanacsan yihiin amarka ilaahay waxaase ay la legdamayaan nolol iyo duruuf qallafsan oo waayuhu ay keeneen maxamed cali waa aabba aan kula kulannay bannaanka dooxada bohosha oo u dhaxaysa dooxada sidib iyo tuulada berdadawanle waxa uu gacanta ku haystaa caagad yar oo 3 litir qaada waxaana biyo ugu raadinayaa rag arigii wada kuwaasi oo ay 3 litir qaadaasi afcab iyo cashaba u noqon doonto anagu ma hayaan baan ahayn haye waxaan ka soo hayaanay dee godaalaan ka soo hayaanay way dee waxa gaadiidkan wadanay dameeraha wadanay jidkaan uga nimid aydiin rarnaaba anoo rarnaa annaga bustii hooygii cuntadii biyihii wixii noo saarnaa waxaan uga nimi jidka markii ay waxa weeyaan fadhiisteen oo ruqdeen dameeraha fadhiisteen If the crucial rains in the coming weeks do fail, it'll mean that communities like this will lose hope and that they will just disperse and head back into the hinterland. If that does happen, it'll mean that getting international aid to them will be difficult, if not impossible.